السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصوماليات ملك السؤال جوكتان يسا كسوة ضدوارسة حلو ونكسة موضوع وحوكو سابسان يهي ciidamo ka soo jeeda beesha mursade oo hal guuta gaaraya oo ka ambabaxay magaalada muqdisho iyadoo dadka loogu sheekeynayo in ciidankaasi ay xoreynayaan ceelbuur galhadeeri jacad bargaan dacdi riwabxo iyo inta ku xeeran waxaan doonayaa marka insha Allah taala marhabaabinta ummadda lagu sameynayo iyo muxuu ahaytay saddex qodob oo ciidamadan in xilligan la diro kalifay inaan ummadda la wadaago waxa la yiri oday baa islaantiisa u daray maalintii dambe ayay waxay u keentay harub caana intee la soo oroday markaas intii xaaji bal isdhaaf markaasuu yiri hebloy caana ima siin jirine caaw ma barabara kaaga dhacday waxa weeye xasan maxamed cali sow dhul mursade in la xoreeyo weligii kuma soo dhicin daacadna kama noqone talow ujeedadu leeyahay maxay tahay qodobkaas ayaan isdul taagayaa adinkana mas'uuliyadiina waa sheerta like-ta follow-ga iyo subscribe-ka insha Allah taala waayahay ciidamadan oo hal guuta ah loona dhiibay wiil la yiraahdo Ismaaciil Hebelkaad Tuur Yare ayaa ka baxay magaalada Muqdisho iyagoo durba gaaray gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamadaas halka beel ah xilligan inay baxaan oo loo diro aagaga dagaaladu ka socdaan saddex sababood ayaa mas'uulka ah qodobka koowaad waxa weeye ciidankan horta marka hore waxaa lagu tababaray qaab sudfa ah si aan ku talagal ahayn oo adigu maaragtay kadisa ayaa tababarka loogu furay taasna waxaa keenay berigii ciidamada faraha badan uu watay Jacfar oo deegaanadan mursade u dhow marna uu joogay maxaa ay tay maxaas marna uu joogay aadan yabaal waxa weeye sababta ugu weyn ee loo hagardaameeyay howlgalladii lagu xoreyn lahaa dhulka mursade waxay ahayd in xasan sheekh maxamuud iyo nin la yiraahdo xasan macalin maxamuud mursadana xasan subaal u bixiyeen ay ka shakiyeen Jacfar oo iska dhaadhiciyeen ninkani dhulkaas haduu qabto waxa weeye hadhow ama mucaarad weyn inuu ku noqdayo dhulka ugu horeeya dawladda lagala wareego oo dhulkaas u noqdaa marka cabsidaas maadaama ay timid waxay ka mid ahayd waxyaabaha loo hagardaameeyay dib u xoreyntii dhulka mursade xilligaas ayuu marka xasan sheekh maxamuud wuxuu amar ku bixiyay in ciidamo rasmiya oo beesha ka soo jeeda amarkiisana biri ku shaqeeyo loo tababaro la xareeyo ciidamo qaaraan oo yaa ku yeesho boqol gaaraya la xareeyay guutadii waxa weeye tababarra loo furay Jacfar sidii hagardaamadii iyo lugooyada iyo maxaa ahaatay isku dayga dil oo uga baxsanayay markii dambe waa kii gadaal isaga gurtay oo hawsha fahmay xasan maxamed cali sow marka ciidamada tababar ku jira waa kii isaguna arrimihii howlgallada iyo dib u xoreynta iskaba iloobay Itoobiya iyo inta ku bood iyo dhul maxaa ahaatay meyd kala bax iyo howlo kale ku mashquulo howlgalladii waa kuwa muddo sanad ka badan joogsaday xasawuuba iska hilmaamay ciidamadaas ciidamada tababarka loo dhameeyay mar dhawey ayuu wuxuu ka war helay in ciidamo hal guuta ah oo tababaran oo beesha mursade ka soo jeeda ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho ciidamadaas ay yihiin kuwa isagu hore amar ugu bixiyay la tababaro xasan arrinkaas uu qaadan waayay culays cusub ayuuna ku noqday waxyaaba laga soo xigtay waxaa kamid ah war 100 mursada hubaysan magaalada haddii joogto ayay madaxtooyadu halis ku jirtaa oo biri markii doorashada la gaaray otootay waxay soo istaagayaan sayidkii si ku yeesho magaalada joogi kartaa sidoo kale nin la yiraahdo xasan subaal isaga ah xasan macalin maxamuud oo beesha dhexdeeda aan bakeeri shaaha ka gooynin xasan sheekhna fahmay hadda inuu yahay nin baaba ah ayaa isagoo kursigiisa ku adkeeyay xalaan la xakamada in xasan sheekh maxamuud ayaan u yeeray oo ku yiri xasan macalinow kursigan iska laalaadiyo aduu kadib iscazil macna oo maxaa dhacay waxaad igu toorantaa male cidna malihid cududna malihid cuduguma taageertido waxa weeye adigoo difaacaya ma arko taas waa tan ku kaliftay inuu cawdhan microphone intuu qabsado oo yiraahdo askarti magaalada ku dhibi jirtay dadka inta qaadnayaan naarta jahanaba ku shubnay inuu saas yiraahdo xasana ka keenay dhiriga karka maxaa ka keenay kulaylka waxaa la yiri marka cududna kuguma hayo cidna kuguma hayo ee islaalaadi haddaan dadaala haddaan wax qabaa madaxweyne xan qabdhaa waxaa la yiri waxaad samaysaa dhulkaaga dad xoreeya la kaalay halkaasuu ku orday wiilkan yare in Tuur Yare ah oo nin geesi ah shakhsiyan isagoo nin raga ah oo ninkii xarar dheere qabta ah ayuu yiri in adeer ciidankaas horka si kursigaygu u adkaado kursigu ku adkeynaya waxa weeye waa qodobka labaad
وحسن مع المحمود أي أسوي كرسي جيسا قاعد كيساري قلب كسدحات وحوي عنقي أدواء يوسف راجع هاي قارة حرقة لها إذا ما دان توبرك مركي لون دميي وحالي كاريو السوح توبرك طلي كاري هل قوتو أو عيدنا أيها توبر لما توبرك السوح مركا سوري هل بيلواي عيدا قبيل توبر وحرب معي هرو يرياه وعيدا قبيل أنا ولا نقارن هاي توبر وحرب معي يقولوا كوين isagoo sidaas iyo tababarkii inuu u xira diiday ayaa daraad ayaydiis darin lagu cararay sidaan xogta ku helnay ayaydii abiyo iyo hooyadii mid dhashamaa qaalib ceel cali axmed markay soo weerareen magaalada aadan yabaal duq ku sugnayd oo ayaydiisa oo 100 jir ah oo sariir saarnayd baa waxa la darin lagu orday dirinta waa taqaana soo faq la falkiyo waxa weeye dirintaas inta lagu rido afarni geesaha ka qabatay islaamta la orday markaas duurka la galay sababtoo waxa la meesha diimaadiin وأدواء أيدي هدي اللي مع أيده ويدلي أدواء مركي أيدي لا أرضي أيو سقول صاح الصوصتي إن أيجرين عيدا مرسا أحرق كسوان سقول مركز أيو أمر كل بحي عيدا كسر الله كذا مركز جيدود وحوي يدنا بافرزون إن الله قد يقول أبقى الإسمان غير دول فيته ما له ذاك وفر نبي أو كلا عربي أرحم وذا ما قار وعاوي إنه وكبر كي سوق على كم ذي بيجي للصبح وضدك السنة ذكر الحري سنة بركور والله صار كود كل الحري حقه وجري على كم ذي بيجي للصبح يعني كرو تاني إسلام يا سبابولو الرضا قال جوجي أيوة كورتاجي وعاوي ما كان ردول في تبكي كافر نبين أيالي ويلشان مرصدي بفرسون الله قد يقول تلقى على أحمد بنان كده هل الدجيو سي خواريج تلقى سوار كسوق عاديسه iyagu marka hore ugu dhamaada marka waxa weeye saddex ujeedada meesha ku jirta kow ciidamada waa in la cirib tiraha la baabi'iya oo xasan maxamed cali suu waxa weeye kuma qanacsan ciidan hal guuta gaariyo murso ah haddana ku sugan magaalada muqdisho waa in halka ku soo dhameeya labo waa inuu bafarson uga dhigaa abgaal oo ibgaal difaacaan waxa isle cali gaaf iyo daal ku roon yahay wixii la jeeda ilaa ciise rati dhulkiis in lagu ilaaliyo leeyado dhulka u dhaxeeya مرصدها ديجان كيس يديجان كأبجال عندما هكسي جيست أنا حبيت الكوبات يكون عضها كأصل لغة أفجره قلب ككلام حوي حسن صبال أودوني إنه كرسي سقوط كريه أو حسن شيء سكجدوا إلى مدح وين كرسي جدي إيدا وأنا قام حواتي إيكا كوشوية أو بحواتي أنا محواتي توري دري سيد حاس قلب أيام إذا مثلا صوبة إلى الكاسي الجي تلقي هذا نسوي جيست مرك وعن لا يسد عسى قالوا أرتا نمكن اللي جوجا أرجع حساب inaad iska xoreysaan anigu in badan baa ka shaqeeyay 2016 iyadoo ninna muxuu ahaytay iyo 15 iyadoo ninna aysan ku soo dhacsanayn inuu muxuu ahaytay markaas dagaal la galo ayaan anigu waxaan ahay ninkii inta WhatsApp soo keenay dad bursada yiri lacag keena si aan hub ugu iibino muxuu ahaytay nin la jira biyo qoota Allah waxa soo dhintay oo markaas ciidamada Itoobiya deganaa meesha Ceelbuur la socday wuxuu yiri كنتي بنتي واحد من القاعدة ودنتي لما الشيكا وحا السيبوي إثيوبيان مركا بابور أنصارته أي الله هيدا ما كان ولا لجب هدين لا صوتها مركز بيس ميليتريان هيسنو إثيوبيان طبعا سكري العاده كوري ان استعتون كو دور إذا المريض waxaan baro ku wada la gado waxaan la markaa bal ku eeg haduu kaas qurigi saaro ee soo sawiro kan labaad ugu dar baabuurka xamar uu ka galay isagoo baabuurkii wataa lagu dilay isaga dacwo ma qabaan laakiin waxaan rabaa inaan tusaalaha macnaha idin siiyo dadaalka dhulkan aan galiyay iyo argaxiso in meeshan laga kiciyo dhammaan siyaasiyiinta mursada markaas waxa way groupkeena sabka intay soo galeen bay waxay ahaayeen waxa wadin waxba kama jiraan howlan anagu wadin wardaaw daddeena la soo safka la soo gala waxa weeye marka berigaasi ka fursad badnayd maanta oo base military haysan xasan maxamed cali sow waa ninkii noo diiday base military inaan helno si dhulkeena aan ula jabhadayno argagixisada oo siga celin hadda marka xawaalaha walaalaheena oo maxaatay geeyfan dagaalka ku jira waxyaabaha saaciday waxa kamid ah base military ilay maxaa base military waxa beledweyna ah maxaatay waxa magaalada Buurburta waxa ma jilay hadii sheeg magaalada kale degmada iyadoo ka tirsan ii sheeg magaalada afraad iyadoo waa kulliba gaalanka keeni doonay waxa weeye jaalaqsi weeyaan afartaas base ay haystaan marka anaga hal base inaan helno waxa loo diiday xasan sheekh maxamed waxyaabaha aan idinka daba geynayo tolka meesha degan waxa kamid ah in ciidamadii Mareykanka ahaa ee Ismaaciil Cabdi Maalig la tagay magaalada muxuu ahaaytay Ceelbuur
ay codsadeen in halkan maraykanka laga siiyo base military oo africom leedahay xasan sheekh maxamuud iyo odawaa ayaa diiday oo yiri baseka military waxaad geenaysaan aadan yabaal ama ceeldheer baad geenaysaan sababtoo ah ma rabaan dhulka mursado inuu xiroodo soo ma ogidina waxaa weeye marka maanta يعني هوشاس أدق نينك أصلا مري حرين تدول كارناي هذا الحسن محمد على السوق مركو حين يفحين في الأرداي أنا قلت سياسي صار أحسنين لك الشباب وحين إبي وأرجو أحسن أركاس وأن تاجرينا وأن تاجري إلى أن أجاني قيامة قدام بيسو اسمع عبد بالك عينك وتمركو البور جاي ومركز حرق دير يا الدير يا محوات ورب وملأ وعيد بدك الصارة س عيدك ما شاء الله يقول لا يوق عبي شهم عبي اسمع له ولا سعد عبد الملك دقالك انتو كجرو السعودي وانا اسكا ورقبنا وحلا وريا وانا عن دور دير باشا كورقب اسكجر داعد هدي تعالى waa okay way noo fiican tahay daacadeen ayaa lagu khiyaameyn waxyaabaha badbaadiyay kamid tahay ugu dambeyn waxaan leeyahay wiilka ina tuur yaray anigu hebel ciise tuur lama leeyahay ciisaas ma laakiin hebel ismaaciil tuur la leeyahay walaalkaygiyow waxaan leeyahay horta nin geesi tahay shartay shaydan kala ka xijaabo kulli hadaad baxday oo cilmadii aad hogaamisay وأقول بدي على كتب هذا الملك لكن أقول حسن الشيخ محمود أديك يقول ترى أبو تبى تي شهم أبو كهرباء شهم أبو الأبجال اسمه هو هاي وين بعدها حسن الشيخ محمود سراكيش وسلافي حسن مع المحمود كوفاني يوكوكا أو شهم أبو يقول تدي لسعود سقال المسط كوي طبعا كصوب حسن توصله بيسي ويحكي الله ما حيو وعوي أنت مالك بدجيو انت ميل ودجيو يان غفور دوب لوو بلامين hadii meeshaas dib u xareen rasmi ku jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo wax xoog badan lagu darayo dhulka mursada aadi kartaa laakiin hadii lagu yiraahdo labada dhul inta ka dhaxaysa difaac ka gal inay dil tahay waa inaad ogaataa oo aad noqoto nin aad u caqli badan beesha mursada waxaan leeyahay maanta yaan leedin ku dagaal gelin caraado مرصد واحد ويا والله يقانا فلياتي تقول ما قبصة كرتا أنت كمان بحكرتا والمرصد هدو فلياي سيدا أبقالو محواتي مجد بدنا لها خير ترى بدل حضاد أركتان وحاول يحبط مرخدان صوتها دير له ما بط ردول فيتي حبط واقع عرارات وأقوى سامير كستطوبا هي تردو بحي تفتمرك خيركاها الروحو ضباؤو رارا عذاكار وعاوي مركا مرسل waa la yaqaanaa 100 wiil meeshay gasho waa galanta 10 meeshay gasho waa galanta 1000 warkeeda iska daa marka waxa weeye waxa tiin waa la yaqaan waxba yaan leedin ku caraadin iyadoo la rabo in la idin laayo meel ma qabsan kartid inta ayadoo leedin hagardaameyna adugtiin waxa weeye dawladda daacadu markay timaado oo lilaahiya oo aan la qadaba wadan ay dhulkiina xoroobi doonaa inta ka horeysa taagsan idin leeyahay hada wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh